barqa wanaagsan saaxiibayaal sida wadantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan asxaabi markasta waxaa raadaan shax oo dhiskeeda badan yahay keen sida u jeedaan maanta shax oo dhiskeeda badan yahay ayaa keenay laakiin ogaada markasto shaxda waxaa ka weyn nasiibka qofka saaciidi doonto ma ahan kooxaha ma ahan ee waa nasiib sometimes waxaan aragnay badanaana waxaan aragnaa aan iraahdo koox $25 saartay koox $1.50 saaran tahay koox $25 saarneed inay badiso ama ay barage geliso wax iska caadi ah marka nasiibka ayaa wax walba ka weyn marka nasiibkaaga ku qanac tan kale markasta waxaan idiin dhahaa shaxda markay kusoo gaarto 3 daqiiqo iyo 4 daqiiqo ha degdegan ha gudbinin daawo fiirso labo waxaa ka fahmaysaa kooxaha siday kooxaha horyaalada ciyaaro siday u kala awood badan yihiin sidoo kale waxaa baranaysaa inaad shaxda naftirkaaga bari aad wax ka dhisto marka tan kalena meelaha is leedahay in wax laga bedeli ku fiican ka bedel laga yaabo inay ku toosto marka waxaan waa fikir kaliya oo isku darsiya laakiin shaxda 99% ayaan u dhaweynaa marka hadaan shaxda guda galno waxay noqonaysaa waxaa maanta ugu horeeya kulanka ugu horeeya waa Aston Villa iyo Bournemouth oo idinka soo xulay horyaalka Premier League marka Aston Villa kooxaha ugu dhibka badan horyaalkani qayb ka tahay marka waxaan ku soo xulay Bournemouth iyo Aston Villa in Aston Villa badi karto waliba 2-0 meelahaas inay kaga badi karto dhigeeda Bournemouth kulanka labaad waa Arsenal Lens iyo Angers waa Ligue 1ka France Ligue 1ka sida u jeedaan $1.60 saaran halka ay $13 saaran tahay Angers marka guud ahaan sidoo kale shaxdan ama kulankan waxaan kugu soo xulaa in Arsenal Lens ay ka badi karto dhigeeda Angers waxaa qayb ka ah Benfica iyo Victoria Benfica oo u soo gudubtay sideedamaadka waxaan ku raadaa ama sheeg wareega sideedaad UEFA Champions League aan iraaday kooxda u soo baxday qayb ka tahay sidoo kale horyaalkeeda Portugal Premier League kooxaha ugu tunka weyn qayb ka tahay marka tan lagama shakiyo inkastoo wax walba nasiibka uu yahay laakiin Benfica way badinaysaa Besiktas iyo Istanbulspor oo ah horyaalka waxaan ku raadayay Turkish Super League kaaga soo xulay sidoo kale Besiktas aan ku soo xulay inay badi karto waxaa qayb ka ah Celtic oo ah Scotland Premier League kooxaha ugu awoodda badan ee ku jirta horyaalkan marka Celtic sidoo kale sida u jeed $17 saaran kooxda kale halka double chance-keedu yahay $5 iyo bar Celtic badinayso sidoo kale waxaan ku soo xulay Udinese Calcio iyo Milan oo ah kulan adag tan marka waxaan kugu soo xulay inta ka tusaa waxaan kugu soo xulay both team to score in at least one half sida u jeedaan no oo ah labadan tusaale labadan koox waa ciyaarayaan 45 daqiiqo ugu horeeto inaynan gool iska dhalin tusaale Milan hadii 2 gool dhaliso 2-0 ku dhamaat ama nimanka Udinese 2-0 ku badsam 1-0 kulanka factor horeeto ay ku badiso macnaha waa win laakiin 45 daqiiqo in hal iyo hal kala dhalashaan iyo loo isku noqotaa marka mana u eko sababtoo kulankan waa adag yahay oo qof walba uu dadaala inta badan goolasho waxa la iska dhaliyaabo 45 daqiiqo tambo sidaas aan kugu soo xulay waa nasiib Manchester Espanyol iyo Celtic iyo kooxdan kaleeto Celta Vigo sidoo kaleeto waxa isla tiyo kale kaaga soo xulay inaan ku dheeraado waqtiga marraba both team to score at least one half in kiimakin 2 gool ama iska dhali karin sidoo kale Manchester City iyo Burnley City way badinaysaa waa dhihi kartaa San waa dhihi kartaa 45 daqiiqo Burnley City mudaafacashada aad ugu wanaagsan tahay Burnley waa koox iska yar marka Borussia Dortmund iyo Cologne sidoo kaleeto waa dhihi kartaa Borussia way badinaysaa waa dhihi kartaa inta badan horyaalkan waa la iska dhaliyaa laakiin 45 daqiiqo inaan hadda kugu soo xulay in iska dhali karo Chelsea iyo Everton inkastoo la rajaynayo Chelsea inay badiso haddana waxaan kugu soo xulay inay Chelsea badinayso oo marka hore waxa ka dhigay both team to score no in one half laakiin hadda waa bedelay Chelsea inay badinaysaa ka dhigay marka guud ahaan shaxda halkaas aan ku soo afmeerayna koodkana waa kaas oo V7KLU marka saaxiibayaal guulaha isku rajayna aad baa mahadsantiin